ugu yaraan haweeneyda ah ayaa geeriyootay 62 kalena waa ay dhaawacmeen Arbacada maanta kadib markii weerar lagu qaaday saldhigga ciidamada cirka Mareykanku ay ku leeyihiin dalka Afghanistan. Saldhigga lagu magacaabo Bagram kaasoo lagu tiri inuu yahay mid ka mid ah saldhigyada ugu waaweyn ee ciidamada Mareykanku ay gudoomiyaha deegaanka Afghanistan. Bagram ayaa sheegay deegaanka ayaa sheegay in dadka waxyeeladu soo gaartay ay ahaantooda ahaayeen dad rayid ah la socdeen maleeshiyaad hubaysan kuwaas oo si toos ah u soo weeraray saldhigga ciidamada. Dhanka kale gudoomiyaha deegaanka Cabdishakuur Quduusi ayaa sheegay in bartilmaameedka weerarka uu ahaa saldhigga ciidamada cirka ee Mareykanku ay ku leeyihiin dalka Afghanistan kaas oo lagu magacaabo Bagram. Warbixinada qaar ayaa sheegaya in 7 dagaalyahano kuwaas oo hubka darandooriga ku dhaca ku hubaysan ay si toos ah u soo weerareen saldhigga ayna sidoo kale rasaas huuyeen dad joogay meesha. Quduusi ayaa sheegay in dagaalyahanadu ay isku qariyeen dhismo hore oo ahaan jiray isbitaal kaas oo u dhow saldhigga Bagram. Isbahaysiga gaashaanbuurta NATO ayaa sheegay in weerarkaasi lala bartilmaameedsaday saldhigga Bagram xilli halkaasi ay ka socotay baaritaanno caafimaad ay u sameynayeen ciidamada Mareykanka shacabka Afghaanistaaniyiinta ee ka agdhawaa deegaankaas. Waxay sheegtay isbahaysiga gaashaanbuurta NATO inaanay jirin waxyeello soo gaartay ciidamada Mareykanka iyo kuwa isbahaysiguba. Sidoo kale waxay intaa ku dareen in si dhaqsiya loo soo afjaray weerarkaasi.